sheegaa ayaamahan baraha bulshada waxaa qabsaday qof la leeyahay baashirin la leeyahay waa la qabaa waa la furay waa arkay videosh waa daawaday laakiinse waxaan ogahay ninkaas yaad ugu mashquulinay fanaaniin badan oo taqaano Soomaaliyeed oo idin heeso aan la babiyaa. Fanaanka Idle Yare ayaa sheegay inay jiraan fanaaniin badan oo rag ah oo waxa loo yaqaano qoomuluudka ama Soomaalidu ay tiraa qaniiska. balse marka hore fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambeelka ahna furo si ay ku dhaafin warbixinadan soo gelino. Fanaanka Idle Yare Idle Cabdullaahi Nuune Idle Yare ayaa sheegay inay jiraan fanaaniin badan oo rag ah oo gadaal laga babiyo waa sida uu hadalka u dhigay taasoo uu ula jeedo inay jiraan fanaaniin badan oo qoomuluud ah kaaga sii daran ma aha dumar waxa uu sheegayo waa rag walla uusan carabaabin oo uusan dhihin waa hebel iyo hebel oo uu sheegay inuu dhihi karo hebel iyo oo uu rabay inuu afka isaga wasaqeeyo walla uu cara saa'id ka muuqato oo akaaneen dagaal ku jira ama saba ka xun waxyaabaha dhacaya haddana wuxuu sheegay inuu waqtiga loo baahdo sheegi karo dadka ay yihiin oo magacyadooda carabaabi karo oo waxa loogu xumaado waxa social media bari ugu dambeeyay haystay nin ku nool wadanka South Africa oo yiri waxa ay qaba nin kale oo cadaan ah social media ayuu soo dhigay video oo hadlayo noocaas oo leeyahay waxaan ahay nin raga oo Soomaali ah oo la qabo ka ayaan ka bacdi hadana waxaan aragnay isla asagii oo hooyadiis inta wacay isagoo live soo galay kadibna hooyadiis wacay oo dhahaya aan hooy aniga waad inacday hawrtan hooyadiisna ay leedahay ila waa beer wax dhalay ka joog waxaan waad caabeysay familkayga caabeysay ee uu gaarayo heer oo iyada ana calaalayo wacaayo marka dambana uu leeyahay blog baan ku saaraya si aad mar dambe ii soo wacin ayadoo tii laga yaaban yahay oo fajac madad ku abuurtay oo meel kasta loo hadal hayo la yaaban yahay oo leeyahay dhaqankii iyo diintanadii iyo waa ceebeeyay Soomaalinimadanadii ayaa waxa soo baxday inuu idle yiraahdo ninkaas aad ku mashquulsan tihiin caradiisa wajigiisa dabcan markaas waxa laga dareemayaa inuu bomboniskaas ka xun yahay dabcan annagu ma garan karno laakiin haddana Idle Yare wuxuu leeyahay waxa jira fanaaniin codkooda ku raaxaysatiin oo asaga ka sii daranbo oo gadaal laga babiyo mahaladkiisa si fiican loo dhuuxa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soomaali maxamed oo joogta waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka kood waxaan idin sheegaa ayaamahan baraha bulshada waxaa qabsaday qof la leeyahay baashirin la leeyahay waa la qabaa waa la furay waa arkay videosh waa daawaday laakiinse aniga runta ayaa la igu dhicin adduunku waxaan u jeclaa runta inaan sheego been wallahi ma jecel faana ma jecel waxaan ogahay ninkaas yaad ugu mashquulinay fanaaniin badan oo taqaano Soomaaliyeed oo idin heeso aan la babiyaa marka wajigiisa si fiican u fiirsato waxaad u malaysaa nin xanaaqsan ama sabab meel laga taabtay oo dabcan asagu qadiyad difaacaya walla ana dhihi karin ninkaas oo ka damqanaa haddana waxaad u malaysaa nin xanaaqsan oo wajigiisa cara saa'id ayaa ka muuqata dabcan ma garan karno dadka uu jeedo waa la babiyaa ama sabab dadka uu gaar u haysto laakiin ninkan waa nin meel ka shidan meesha doonta ha ahaatee balse fiican u sii daawo video kan waa bas oo sheegay banaanka u iskeenay la kuwa idin heeso qaarkood waad heesiis ay soo saadaan ala babiya ma gartay qaarkood hana moogma la ay ku maqin marka waxa idin leeyahay insha Allah aniga ma cabsanayo ko laba saddex hebel waa dheekara bas ma dhahayo ilaahay ceebtooda astur laakiinse babis magaalada wuxuu noo sheegay inuusan cabsanayn balse annagu ma naqaano dabcan cid u hanjabtay haddana asagoo dhahaya ma cabsanayo aniga ayuu dana cabsanaya sababtoo ah muusu sheegin ragii Soomaa ma cabsanayo iyo waxa sheegi ma isma raacdo waxa loo baahnaa maadaama uu yiri ma cabsanayo inuu wixii ku dhiirado mid kale qofka noocan waxa xanaajiyay annagu ma garanayno video u soo duubay qof iyo labana ma ahan oo dabcan daan dhihi lahayn xataa qof isku dhacsan yihiin oo hal qof oo macnaha haysta waa orolehen markaas wixii xanaaq taas ka keentay laakiin hadda dad badan oo carabaawo fanaaniin badan oo wali codkooda ku raaxaysteen marka wuxuu si agtaa inuu haysto fanaaniin cod macaan waayo qof aan cod macaaneen codkiisa lagu raaxaysto sida la wada ogsoon yahay wallow cod macaanidii baad iska noqotay wax iska caadi ah maksar magaalada wareeriye haddana wuxuu leeyahay fanaaniin badan oo aad ku raaxaysateen ayaa la babiyaa marka asagoo waxba ka xishoon oo hadda waxba qarin oo ceeb sheegay haddana wuxuu iska dhigaa nin wali wax qarinayo oo wax soo sheegi doona haddana wuxuu leeyahay ma cabsanayo aniga haddana wuu cabsanaya marka idle dabcan anagu ma garan karno qofku markuu xanaaqsan yahay inuu go'aan qaato ma fiicna la yiri iyo markuu aad u faraxsan yahay labadaba dabcan idle wuxuu ogtahay inuu asagoo aad u xanaaqsan oo go'aan qaatay go'aankaas oo ah inuu sheegay laakiin waxa uu soo fashilin la hadda
wax xun wuu sheegay cagtu ku dhacay oo fanaaniintii macnaha asaga dadka kula shaqada ah badanaa lama xanto lamana caayo laakiin ku shaqada ahay wuu caayay haddana ilaa hadda muusa cadeen waxa wax aad loogu xumaadaa inuu macnaha dadka si guud macnaha oo u wada caayo waxa roonay dabcan haddii ay dad qaldan jiraa inuu qaas u sheego oo yiraahdo dadka qaar xataa waad ku mahadsantahay inaad barnaamijka daawatay fadlan daawad haddii aad channelka cusub subscribe saaro calaamada gambeelka aan furo haddii aad hor noo joogtana waad ku mahadsantahay waad mahadsantihiin dhammaantiin